قرآن كان أنت بدن هذا درك تودتك إلهي وحدرتي ملائكة الرسول با أمانة الوسفي قرآن كمان كذا يكتب النبي يضرب من النبي والإمام حولي إني لكم رسول أمين بالنبي ولا شيء حتى ملك الجبريل الله محولي نزل به الروح أمين بالغت المامي مطاع ثم أمين أمانة أصل بيكاتي قفكم ينو قف أمانة لي هي وأصلك يعني إنك ودنا دارتن وحيابات كقول لي توها كميدا وقضية الكواد على قيمين من غير leadership كوربين السياسة ده حلو يقان قف كبين بدنيه أما كتوجا نبى بدنيه هاي معناه ده هي مجتمع توجا أيوه marka inuu kan ceebaynayna ma aha inaynu tuuganimada nacabnay ee waa qofka qaatay baynu nacabnay haduu ku reerkiina qaato oo si aamuslahay shaakilku wax weeyaan yani مثلا نبا maamul haya tuug buu noqday waxbuu xaday laba guri saddex guri afar guri buu dhistay markuu meesha galayna mid ma lahayn afar guri buu dhistay inagu waxaynu odhanaynaa waa amaanaynaa waxa la leeyahay wallahi ninkaasi dee laba sanadood buu shaqeeyo reerkii guri waa uga dhisay carruurtiina biilka meel ay ka soo qaataan buu uga sameeyey waa ammaan mujtamacana wuxuu ka yahay qof ammaanan oo qof wax ka qabsaday kii inta la mid ah shaqeeyay aan waxba ka soo qaadanina war waa bahalna casooyinta wasaarad loo dhiibay dhan ayaa wali carruurtiisii loo dawarayaa bay leeyihiin dadminis waxa weeye tuuganimadaynu isku waafaqsannay waxaynu isku haysanaa waxa weeyaan waa qofka cunaya farqi inoo dhexeeya waxa weeyaan waa kumuu noqonaya ninka wax xadaya laakiin wax xadidda waa wada ogolleh in wax la xado saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay khudbad kasta uu nebigu jeediyo waxaa ku jiri jiray buu leeyahay Anas ibn Malik saxaabigaasi inuu nebigu yidhaahdo iimaan ma leh ninkaan ammaano lahayn diin ma leh ninkaan ballan lahayn ka warran iyadoo nebi maxamed khudbad kasta uu jeediyo uu intaa ku daro waxay tilmaamaysaa bulshada dhexdeeda waxa kale qiimaha siduu ugu leeyahay